بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha reer Djibouti meel kastoo joogtiin ba waan idin salaamayaa. heestii waxay sheegaysay ma weynaato waatan maantana ma weynaato ma waantowdo waatan maantana iyadoo la sheegayo RBB-da waxaan ognahay gelinkan inay dhex socdaan magaalada xaafadaha ay ku dhaadhacayaan iyagoo isku diyaarinaya doorashadii qaladka ahayd doorashadii tuugada ahayd doorashadii ku shubada ahayd iyagoo isku diyaarinaya laakiin maanta waxaan jeclaa inaan si gaar ah uga hadallo isdul taagana kelmad ceeba ama oraah waxshinimo oraah qalada oo ka soo yeedhaysa RBB-da gaar ahaan nin wasiira oo ka tirsan RBB-da ahna wasiirka bidjeega Bod Ahmed Roble oo kulan ku qabtay xaafadda Beekadus ayaa runtii oraahdiisa ama weedha halkaa uu ka jeediyey ayaa ah weedh ceeba weedh foolxuma waxay ku tusaysaa inaan laga xishoonaynin dadka waxay ku tusaysaa in lagu tumanayo dadweynaha reer Djibouti waxay ku tusaysaa runtii qaabweynida iyo talisku halkaa uu joogo iyo shicibka halkaa uu dhigaya bay ku tusaysaa afar kelmadood oo runtii ka soo yeedhay ayaa si xun baan u cambaaraynaynaa si kulul ayaan u cambaaraynaynaa weedhaha foosha xun leh ee taliska ka soo yeedhaysa kow weedha u horreysa waxa uu ku caayayaa uu ku ceebeynayaa shaqaalaha reer Djibouti oo leeyahay shaqaalaha reer Djibouti waxba ma qabtaane biirooyada iska dhex fadhiyaan oo turub bay ku dhex ciyaaraan ayaa uu leeyahay waxaan u sheegaynaa shaqaalaha reer Djibouti inay karti leeyihiin inay dhididkooga xalaashadaan iyadoon ognahay dhibaatooyinka haysata iyadoon ognahay mishaarka la siiyo inuu wixii nolosha ka caabinayay uuna ka caabin bishanbisheediina waxaan ugu yeedhnay taliska inuu dadweynaha reer Djibouti ee shaqaalaha mishaarka uu biiriyo inay u biiriyaan mishaar iska daaye shaqaalihii reer Djibouti ayaa la caayaya waxaan leenahay shaqaalaha reer Djibouti cay ma gayaan waa dad xilkasa waa dad kartile waa dad dididkooga maala waa dad shaqadooda ka soo baxa waa dad dadkooga u adeega baan leenahay taageero ayaanu muujinaynaa oraahda labaad ee foosha xun leen halkan ka cambaaraynayno waxa ay tahay isagoo ku tilmaamay dadweynaha reer Djibouti gaar ahaan shaqaalaha baananka iyo cidda shaqo doonaysaba inay yihiin tuugiin isagoo ku tilmaamay oo cid la aamino ayaa la leeyahay ayaa uu yiri waxaan u sheegaynaa dadka reer Djibouti inay yihiin dad nadiif ah dad karaamad leh dad sharaf leh dad aamina inay yihiin baan u sheegaynaa laakiin innika oo taliska ayaa shaqada ka hor jooga marka waxaad ku macnaynaysiin inaad ceebaysiin oo aad caydiin dadweynaha reer Djibouti kuwii shaqada doonayay baanan bay xadaaniyo shaqa hadii loo dhiibta keeska way xadaaniyo reer Djibouti maahin baan leenahay kuwa waxada reer Djibouti karaamad iyo sharaf bay leeyihiin baan leenahay halkana taageero ayaan ummadda reer Djibouti inta shaqa doonka iyo inta la ceebeynaya ee shaqaysaba waxaan leenahay uma qalantiin waxa mana tihidine karaamad iyo sharaf baad leedihiin baan leenahay kelmadda saddexaad runtii waa kelmad iyaduna aan cambaaraynayno si kululu cambaaraynayno waxa ay ku saabsan tahay inuu halkaasi ka sheegay dadka reer Djibouti ragu inay lacagta ay soo helaan ay jaad geliyaan haweenkuna ay badeecad geliyaan buu halkaa ka sheegay waxaan u sheegaynaa haddaad aragtay adigu qof jaad cuna iyo oo gelinaya lacagtiisii jaad iyo haddaad aragtay gabadh badeecad cabaysa waxaan leenahay haweenka reer Djibouti ceeb ma gayaan baan leenahay waxaan ognahay kartidooda hooyooyinka reer Djibouti waa haweenkayaga waa hooyooyinkayaga waa ay nala dhasheen marka waxaan leenahay haweenka reer Djibouti ceebna ma gayaan عينا مجيان عمبارين مجيان الشرف يا كرامات أيا أيليهين كلمة دا أفرادنا وحويان دتكي شقد الدوني شومركا إنكو كسو نقول دون هاوشاسي وقتي قادو إلى هيرادو أيا الله شيء يا ولا جلي هاي شقة ومبهني دينا شقة نيمة هاي إنه قرا لجا إلا جيرا هذا بهيدا شقة ومبهني دينا بالجلي هاي
oo waa la ceebaynaya oo la cambaaraynaya oo la leeyahay ma shaqaysanaysiin karti ma lihidina baa laga leeyahay waxaan u sheegaynaa dhalinyarta reer Djibouti inay karti leeyihiin inay hawlkar yihiin inay aqoon leeyihiin laakiin shaqa abuurkii aanan loo haynin oo waxa lagu qaadaa shaqada iyaa kuwada iyo reer hebel baanahay ayaa lagu qaadaa shaqada marka waan cambaaraynaynaa hadallada foosha xun leh ee ka soo yeedhaya RPP-da gaar ahaan wasiirada gaar ahaan Booda Axmed Roble ka soo yeedhaya aad baan u cambaaraynaynaa waanan ka xunnahay ummadda reer Djiboutina waxaan u sheegaynaa meel kastay joogaanba rag iyo haweenba waxaan leenahay karti baa reer Djibouti lagu yaqaanaa sharaf baa lagu yaqaanaa karaamad baa lagu yaqaanaa waa taliska waxa cadaadinaya dalka waa taliska waxa cadaadinaya dadka waa taliska waxa sharafta ka qaadaya waa taliska waxa karaamada inuu ka qaado doonaya isbedelka inaan suura gelino ayay karaamadu ku jirtaa ayay sharaftu ku jirtaa qof walba xaqiisa la siiyo ka shaqaynayna mishaarka loo beeriyo oo si uu hawlihiisa iyo baahidiisa u tiro insha Allah ta'ala ka shoomeerkaana sidoo shaqo u helo qof kastaba halkiisa lagu karaamadeeyo insha Allah ta'ala dadweynaha reer Djibouti waxaan ka leenahay waan guuleysan doonaa insha Allah ta'ala jamhuuriyadda Djibouti ha noolaato wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh